waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay laba qarax oo geystay khasaare naf iyo maalba leh ay u dhaxaysa daqiiqado kooban marka loo fiiriyo xilliyada ay dhaceen waxaana qaraxyada oo gawaari loo adeegsaday oo midka hore ka dhacay inta u dhaxaysa tiyaatarka iyo madxafka qaranka qaraxii hore ee ka dhacay tiyaatarka marka laga soo tago askarta ku dhimatay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa kale oo jirta inuu ku dhintay Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ahaa mas'uuliyiinta TV-ga Universal iyo saddex kale oo kamid ah shaqaalaha TV-gaasi sidoo kale wuxuu dhaawac soo gaaray xildhibaan Warsame Jadax qaraxa labaad oo ka dhacay taalada daljirka Daahsoon waxa dadku ku dhaawacmay kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ilaa haatan lama oga tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay Nashaad Aadan Daahir Kalsan TV magaalada Muqdisho maanta oo sabtiye qaraxyo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo khasaaro xoog leh uu ka soo gaaray dad shacab ah oo tiro badan ay geeriyootay kuwa kalena ay dhaawacmeen dadka dhaawacmay waxaa kamid ah mas'uuliyiin dawladda ka tirsan gaar ahaan dawladda hoose iyo golaha shacabka wariyaheena Axmed Xuseen Cadow oo la socday arrimahaas iyo xaaladda guud ee magaalada ayaa studio la jooga Axmed sida ku dhacay wad mahadsantahay abuukarow barqanimadii saakito ayaa magaalada jug weyn laga maqlay taasoo dad badan argagax gelisay oo qaybaha magaalada oo dhan dadku iska wacayeen lana isweydiinayay meesha ay wax ka dhaceen laakiin gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu weeraray bar control oo ciidamada dawladda federaalka gaar ahaana ciidanka khaaska ah ee ilaalada madaxtooyada ay ku lahaayeen xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho halkaas waxaa la sheegay in gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu weeraray waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar ka tirsaneed ciidamada dawladda dad shacab oo maqaayad meeshaas ku taal aan ka fogeyn ku qaxweynayay iyo kuwa kale oo wadada marayay abuubakar deexow ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay qaraxyada magaalada ka dhacay way soo tarayaan laakiin qaraxa koowaad markii uu dhacay goor laga joogo 20 daqiiqo ku dhawaad ayaa qarax kale oo isaguna kii hore aan awood ahaan aan ka yareyn ama jugtiisa aad looga maqlay qaybo kale oo magaalada kamid ah waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano isgoyska Shabeelle oo markaasi aad ugu dhow xarunta loo yaqaano daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho gaarigaas waxaa la sheegay inuu ahaa gaari saaruf ah oo markaasi ciidamadu ay markii horeba ay ka shakiyeen oo meesha ku baarkinaa dad goobjoogayaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in askartu aagaas markii ay xireen gaarigana laga shakiyay halkaas laga qabtay 2 ruux laakiin ilaa iyo hadda anagu ma ogin labadaas ruux iyo waxa ay yihiin aan ku soo laabto qaraxa hore waxa uu ka dhacay meel aad u mashquul badan oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya ciidanka ilaalada ee madaxtooyada ayaa markay wax dhacayeen meesha ku sugnaa oo goobta gawaarida ku baaray laakiin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo ka yimid dhinaca wadada loo yaqaan ama ka timaada Juba marta xaawataako kuna toosan madaxtooyada oo dhinacaasi ka yimid gawaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka oo kolonyo gaadiid Cabdibilo ahaa iyo gaari kale oo proof oo watay ayaa isku dayay inay galaan aaga madaxtooyada laakiin inta aanay soo gaarin ayaa gaari kale oo ka daba socday waxa la sheegay inuu ku dhacay gaariga Cabdibilaha ee la socday gaariga kale ee uu saarnaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda halkaas ciidamadii amniga ee gaariga saarnaa ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay ku geeriyoodeen gaariga Cabdibilahana uu ku basbeelay isla aagaas qaraxa koowaad ee dhacay waxa la sheegay in ilaa iyo hadda tirada dadka ku dhintay aan la xaqiijin karin hase ahaatee ay tobaneeyo ay kor u dhaafayaan dhaawacuna uu intaasi uu ka sii badan yahay qaraxa kale ee dhacay ilaa iyo hadda lama oga khasaarihiisa laakiin waxaa la sheegay in uu xooganaa aag badan oo aagaas ka ag dhawaana uu burburiyo guryaha ay waxyeello ay soo gaartay mas'uuliyiinta ku dhaawacmay waxaa la sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda in dhaawaciisa uu fudud yahay sida uu sheegay xogeyntiisu faruurta ayaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Warsame Jadax ayaa iyaguna dhaawac uu ka soo gaaray sidoo kalena wuxuu xaqiijiyay in ilaaladiisa qaar kamid ah ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ahaa wariyaasha aadka looga yaqaan Soomaaliya
ayaa isaguna qaraxaas ku dhintay iyo 3 kale oo ka mid ahaa shaqaalaha TV-ga Universal waxaan isku dayay inaan la hadlo maamulkaas ahaatee waxa ay sheegeen inay aad uga naxsan yihiin waxa dhacay oo aanay hadli karin ilaa iyo hadda waana ka cudur daarteen aanu idin maqashiyo bal qaraxu markuu dhacay xaalku sida uu ahaa waa gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta oo dadka dhaawacyada qaba goobta ka qaadayay dadku aad ay u walaacsanaayeen meesha qaraxa koowaad uu ka dhacay waxaa ku yaala kaalin shidaal waxaa ku yaala maqaaxiyo shaaxa laga cabo oo aad dadku ay u yimaadaan haddii ay noqon lahaayeen saraakiisha ciidamada dawladda ciidanka laftirkiisa dadka caadiga ah waxaa ku dhegan oo dhinaca ku haya madxafka qaranka oo madaxweyne farmaajo uu maalmo ka hor uu xariga uu ka jaray aagaasoo dhan guri aag wuu dumay waxa laga sheekayn karana aad ayay maaragtay ay u adag tahay xarumaha caafimaadka xiriirka aad la sameeyay xarumaha caafimaadka ilaa iyo hadda waxaa socdaa in suxufiyiintu ay jiraan laakiin waxaan markan idin maqashiinayaa cod ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa qaraxa koowaad qaraxa midii ugu weyneed ayaa ka dhacday oo siyaasadka midda ka dhacday waa midii ugu dareen maanta ay qaraxa waa midaan la yaabay dhaawacyada gacmaha faraha lugaha inta ka go'an inta dhimatay inta dhaawac lama tirin karo cadadeeda ilaa inta aragtay aniga ugu yaraan 6 qofood dhaawac waa qaaday inta kale ambalaasyo cabdibilaah hadda qaaday 6 qof waa shacab ay ahaayeen askar badan 3 askari camal way soo jiiftay waayahay isxilqaanaya shaqada tiyaatarka iyo madxafka ka hor dadkii wallahi dad badan meesha kulli waa la joogay qaar ka soo baxay tiyaatarka gudihiisa waa u jeeday qaar xaka booyo u jeeday madxafka waa gubinta badan waxa qarxa maxay ahayn kulli waa gaari laakiin noocaasi ma dhigi karo halku ka soo gal ogaantaada gaarigaas ogaanteeda halkaas ka soo galay hore ah oo dhinac hore ah oo xawtaa korteeda ayuu soo maray wax masuul oo halkan oo wax ku gaaray ma laakiin askar dhaawac oo u jeeday waa masuul qofkaas wuxuu ahaa dadkii goobjooga u ahaa qaraxa koowaad ee ka dhacay xarunta tiyaatarka qaranka ee barta control ay u ahayd ciidamada dawladda isla goobtaas waxaa dhaawac uu ka soo gaaray warsamo joodax oo ah nin aad loo yaqaano oo mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadirna gudoomiye ka soo noqday haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya isaga waxa kula hadlay telefoonka waxa uu sheegay in garabka dhaawac fudud uu ka soo gaaray laakiin waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay qaar ka mid ah ilaaladiisii oo kuwana ay dhinteen kuwana ay dhaawac uu soo gaaray goorta aan la hadlay wuxuu aad iga cudur daartay inaanu ka sheekayn karin waxa meesha ka dhacay laakiin wuxuu ii ogolaaday in uu isaga dhaawaciisa inuu igaga faalloodo markaas uu aad u mashquulsanaa oo wasiiro iyo xildhibaano ay ku soo booqanayeen goobta uu ku sugnaa alxamdulilah wax yaraa gaaray waa wax aniga ciidankii maahan nabad qabaan dhinaca kalena xaaladda magaalada ayaa maanta aad u kacsan gaar ahaan aaga ay wax ka dhaceen oo madaxtooyada Soomaaliya iyo degmooyinkan kale ee Xamarweyne iyo Boondheer aagaas ku dhow waa ay xiran yihiin meelaha qaar gaadiidka waa laga shakinayay dhowr meel ayaanu aragnay in gaadiid laga shakiyay ciidamadu ay joojiyeen sidaas oo kalena eeyo lagu baaray meelaha qaar oo xitaa askartu aanay ku kalsoonaan karin baaritaan fudud marka waxaad dareemi kartaa xaalka magaaladu sida uu yahay ilaa iyo haddana mas-uuliyiinta dawladda federaalku si faahfaahsan uguma san hadlin waxa ka dhacay magaalada laakiin waxaa jirtay in mas-uuliyiintu meelaha qaar ay ka tacsiimeynayeen qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qoraal kooban oo ay soo qortay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayay ku sheegtay in ninkii hagayay gawaarida maanta lagu qarxiyay magaalada Muqdisho ay gacanta ay ku hayaan oo baaritaanana ay ku wadaan marka dhinaca kalena isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa suxufiyiintu iyaguna halkaasi ay ka wadaan qiimeynta dadkii wax ku noqday ee dhaawacyada ahaa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambulance ayaa xaqiijiyay inay qaadeen 14 dhaawac ah